جزاك الله خيرا شيخ بارك الله فيك. سائلك الحلي هي إمامك فاتحة ما يجا حنباريا هدي أن ركوع كسو قالوا. الحمد لله إمامك هذا السبب ركوع سنسو قالوا والله ركوعي ركوع دانا واترسل. نبينا عليه الصلاة والسلام حي من أبو بكر صحابي الرفاع بن الحارث يعني نبينا ركوع صنبو صلاة الجماعة مساجك الصوم قالي دور الرمود مسمي horta uu soo orday ama uu soo xalxaadsaday xoog buu soo socday safka isagoo soo gaarin oo halkaa soo socdana salaada uu xidhay in laga soo hortoosoo ka yaabay markuu xidhayna wuu rukuucay isagoo rukuucana uu soo socdo safku soo galay nabigu salaada markuu ka baxay uu weydiiyay qofkii sameeyay ahaa حي وها حي زادك الله حصا ولا تعد دلال بيكا هيده دلالك الله كزياديو لكن مرضى بصاحة السمين مركب النبي صلاة سوء لمدهن ركعتين وكل قومدهن ركوعه كلام بالله بينه isaguna ragcaddii ma soo celin wuxuu dadaalay uu rukuucay ka gaad u lahaana ragcaddii uu ka gaad u rabay hadeen waxba ka taraynin wuxuu urdo u soo rukuuco soo rukuuca soo socdo ma lahayn xadiid kale oo duruqdiisa xasan tahay nabi xasan waxa kale kaga sugan inuu yiri hadaad imaamka u timaado isagoo rukuucan la rukuuca wa'taddu bi tilka ar-rak'ah قعدنا ترسل سووا سجود هذا أوتما دانا لا سجود ولا تعتدوا بها قعدها ترسلنا ما قال ولا حديث ما كان يسوق إياه وهي تلمام يعني عمومك حديثك عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فاتحة قفك عن آخرين صلاة ومجرته وحديث عام الصلاة لو هي حالة كستل تنا وحالات جاره الركوع كسو قاعدي مكعام خاص بالي هذا حالته ولا كسو خيبيا صلاة فاتحة وإلا قرية إلا حالة معهنه وهي الدليل جاره كسو خيبيا جدا وبالله التوفيق. بارك الله فيك. بارك الله فيك شيخ جزاك الله خير. السائل كان شيخ ولي هي هدي weligu gabadhiisa u diido nin muslim ah oo gayaan ah guna diido lacag ma haysta iyo wax saas oo kala la mid ah xukunkiisu muxuu noqonayaa buu leeyahay jazakallahu khayran. alxamdulilah طبعا waa mas'alo guud markay qadiyad gaar ah timaado dariiqeedu qaadi iyo maxkamad weeye حقيقية محا صحة محا خلطة محا رنا محا بين من كذا يرده يسبب وقفك دعوة النقضة قاضي محكمة قاضي إسلا يسقى النقضة وخلط كبدان يجيله قام بالقاضي يا شرع درة اللي يودي ذي بوله قط شرع درة اللي يودي ذي هذا وقت دعوتي حكمك قاضي كو حكمنا مثل عادك صدرت الوحيابه كودا نينك لوغو ديدي كرا جيرا waxa kamid ah waxa ma haysto hadii wali uu yiraahdo waxba ma haystana qaadigu ma gacan dhaafi karo oo run noqoto waayo ilaahi baa yiri wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan حتى يغنيهم الله من فضله كان وحبه السنين إلى وحكهره حرام تهسك إلى عليه إلهي بابا أمرين نبي عسنا وافع فيسوع السر إلى علينا ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء صوم كحبضي شهوة جبس بويه نبينا سداسو كلو كتبيي
gabadh uu la hadlay nimaan waxba haysanin iska daawey ninkaa waxba isku furta ma haye Fatima binti Qays marka nabigu u timid iyadoo cidda ku jirta waa kii nabigu sallallahu alayhi wasallam haddii aad ciddadu kaa dhammaato ila soo socodsii intaadan guursan intaanay nabigu u iman laba nin baa la hadashay nin Muawiya ibn Abi Sufyaan buu ahaa nin Abu Jahl baa la dhihi jiray nabiga intee u timid rasuulka Ilaahay ciddadu way iga dhammaatay ii soo sheeg baa la tiri labadaa ninna way ila hadleen xilli labadaba iska daa ama Muawiyatu fas'aluhu la mala la wa faramaray oo shilin iskuma furtay iska dhaafaysan wa amma Abu Jahl fala yad'u al-'asa 'an 'atiqi riwaayat qarqad fadarrabu lin-nisa wa nin gacan kulul Abu Jahl oo burku halkan u saaray oo burka ka soo horeeya qacda ka soo horeysa iska daa ninkan waa nin naaga dil badan iska daa ninkan shilin iskuma furtay iska daa abu wuxuu sameeyay maxay tahay oo kaliya ninkan faraha ka qaadway shilin ma hayste nabigu gabadhiisaas uu kula taliyay sallallahu alayhi wasallam tala weydiiyay ankii Usaama waa kiiri Usaama nin fiican ah ninka saas darteed asbaabtay ka mid tahay gabadha lagu diidi karo mas'uuliyadeedii xilkeeda ma qaadi kartid haddii qaadiga ay arrintaa caddaatana qaadigu kuma meherin karo tu kaloo reerkooda kugu rabaan faramadhnaanta bahiriyoni oo gabdho ciiddii ka bateen oo meel walba ay joogaane mid kaloo sharcigu kuu ogol yahay raadso marka saa la leeyahay waad ugu diidi kartaa waxaa ka sii fiican hadduu qofkani shakhsiyad fiican yahay xooluhu maalina waa la helaa maalina waa la waayaa laakiin shakhsiga fiican in la helaayo ma badna in loo kaalmeeyo garab loo noqdo way fiicanta waxaan ilaa ragga Soomaaliyeed wiilashiina xoolaad ka bixisaan oo u guurisaan nayo gabdhaha inaad u guurisaan xoolaad ka bixisaan maxaa ku diideen sheekh Abdullah maad bilowdaan rigadii waxay bilaabeen baariishan iyo 10 kun lagama badin kare gabadha guursanaysa odaygu xoolihiisa waa waxa inuu ka siiya ma bilowdaan oo jireysaan hadda markay guriga joogto cuntadeedii caafimaadkeedii waxbarashadeedii labiskeedii soo sida wiilka xoolaha xukuma laha haddaad dhimato soo xoolaha dhaxal kuma laha xooluhu hooska labada gelin من شر وحيستوى ما انتفر مرن لكن قفك الشخصيات في عناء وشخصيات في عيه هي كعشية الركبة هي حالة كستول لو تشرب قبلها حولها وحكسية هديني وراك سن هلانا كل قالية وحما يسيتي سيدا في عن قبلها وديتين إلى جوانك حول أيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله إلى عباد قد حسن تذكر الصالحين ولاك سنبري ملك استلمانهم والصالحين من عبادكم وإمائكم فقرها إلى عباد قدتك نقول عليه الصلاة والسلام سبح إلهي باب الله قادنا وكالميني وحكم إذا والناكح الذي يريد العفاف أفضل سنة حارا كعركة حلين قبلهنا وابتين فسادكينا وابتي رقي في فعنانا وايرادين هدي ويلكو في عيهي قبلها حورالانا هقول دينينا كوينا وحكسية ويلكينا بعد سادس ليدين قبل في عن السهل حورات قبل حساني قبلنا حكا في عنته نوين وغير دلين وغير كورسدين وقيد كالين وما يتقرك سوقه وطوم بصور حتى ما قوله آبو laga yaabo kuwa dhashay inuu ka baarisanaa tiiba rag la tabcayay mid baaba lagu soo kasbay oo hogaanka iyo lagu soo xirageliyay aabo baadahay isagana ciidanka ku darsatay khayr Allah idin siiye marna waxa la talinayaa ninka dhalinyarada xuduud baad leedahay marna waalidka sida ka sii fiican waa inaad taban taabisaan oo reerka dhistaan khayr Allah idin siiye